labadan mashiino waaweyn oo mashiinadii dabka siinay 7 ceel cusub 17 kiiloomitir oo dhuumaha biyaha la dhigayo mashruucan mudan wasiiro hadii ay inoo fulnaa shirkad gaar loo leeyahay 2 sano ilaa 3 sano ugu yaraan laba shifti baa maalintii shaqeeya waa $4 milyan qodista ceelasha saaka waxa sharaf noo ah in halkan noogu yimaadaan wasiirada wasaaradda hawlaha guud wasiir Xuseen Axmed Caydiid wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiir Cabdiraxmaan wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka wasiir Kaltuum Marwo Kaltuum waxay halkan u yimaadeen wasiiradu waxa weeye maanta in ay si kormeeraan qalabkan oo ah qalabkii ugu dambeeyay mashiinada labada mashiin waaweyn oo qiimadoodu sare u dhaafay lacag $600,000 ka badan ay ku baxday mashiinada waaweyn ee loogu talagalay dhamaystirka wajiga labaad ee mashruuca Hargeysa waxaynu ogsoonahay markii bishii 9aad afarteedii markii la furayay biyo xidheenka qoray madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo xarig ka jiray mashruucaas in sidoo kale maalinta laga dhagax dhigay mashruuca isku xidhka ceelasha cusub ee la qoday iyo dabgaarsiintooda mashruucaas oo ahaa mashruuc weyn sida injineerkii ugu horeeyay uu sheegay ka koobnaa 17 kiiloomitir oo dhuumaha biyaha la dhigayo iyo 14 kiiloomitir oo xarkaha leedka ah ujeedadiisuna ahayd ceelashii cusub ee la qoday oo sanadkii 2025 la qoday 6 ceel cusub iyo hal ceel ka horeeyay 7 ceel in la hirgeliyo dhuumihii biyaha isku soo xidhay ee biyahooda soo ururinayay iyo nidaamkii dabgaarsiinta oo dhuumaha biyuuna ahayd 17 kiiloomitir nidaamka dabgaarsiintuna 14 kiiloomitir iyo mashiinadii lagu xoojinayay horta mashruuca wixii uu qalab loo dalbiyay ama dhuumaha biyaha 17 kiiloomitir ahaa ama xarkaha dabka 14 kiiloomitir ahaa waa alaabtii ugu dambeysay oo timaada alaabta hore waa la geeyay oo si aanu sheegnay 17 kiiloomitir 400 mitir baa harsan sida injineerku sheegay nidaamkii dabka 14 ka ahana 1 kiiloomitir baa harsan labadan mashiino waaweyn oo mashiinadii dabka siinay 7 ceel cusub inuu 6 kamid ah qodnay sanadkii dhamaaday 2025 intii talada uu la wareegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi hawshaas oo ahayd afmeerista wajiga labaad ee mashruuca biyaha Hargeysa si mar labaad bulsho badan oo reer Hargeysa ay biyo u hesho ama biyo ku hesho nidaamka qasabada oo guriyooda la gaarsiiyo qasabada biyaha haddaba mashruucan maalgelintiisa hadii ay noqoto isku xidhka nidaamka dhuumaha dabka qalabka kale loo keenay mashiinadan maanta halkan u joogno wasiiraduna ay soo kormeereen iyo hadday noqoto fulintiisa iyo hadday noqoto qodista ceelasha wax dawladda Soomaaliland ama xukuumadda Soomaaliland ay wakaalada wakiil ka tahay ay fulinayso imika hadii lacag ahaan lagu qiimeeyo sida maalinta hore biyo xidheenka la soo xidhay baan soo bandhignay waa $4 milyan qodista ceelasha isku xidhkooda dhuumaha biyaha iyo dabka $4 milyan ba oo xukuumadda Soomaaliland ay maalgelinayso cid fulinaysaana oo wakaalada biyaha Hargeysa mashaariicdan waa mashaariicdii ay naga caawin jireen hay'adaha shisheeye ama dawladaha saaxiibkana ay naga caawin jireen maanta marka waxa farxad inaynu dhaqaale ahaan horumarkeennii wax macno la taaban karo ku celin karno siyaasadii hagaysa aynu iska leenahay khubaradii iyo qalabkii lagu fulinayna ay tahay mid aynu ku leenahay mashruucan mudan wasiiro hadii ay inoo fulnaa shirkad gaar loo leeyahay 2 sano ilaa 3 sano ugu yaraan ayuu qaadan lahaa laakiin bishii 9aad kadib baynu bilownay mashruucaas maantana waxaynu joognaa bishii koowaad ee sanadka 2026 marka qiyaastii waa muddo 6 bilood ah siyaabaha loo fuliyay mashruuca loogu fuliyay waqtiga kooban waxa kamid ah 2 shifti baa maalintii shaqeeya shifti wuxuu galaa subaxii shiftina wuxuu galaa galabnimadka 3 ilaa habeenkii ku jira 9 habeenimo labada shifti oo shiftigii wuxuu shaqeeyaa 8 saacadood marka waxyaabaha inoo fudeeyay waqtiga kooban inaynu mashruuca runtii ku soo koobno 17 kiiloomitir beeba 14 kiiloomitir xarkaha dabka la dhigayo dhismayaasha la socda ee kala duwanba waqtiga kooban inaynu ku soo dhameyn karno waxa kamid ah shaqaaleena carbisan iyo siyaasadda shaqada iyo qorshaha shaqada ku hagano ah mid ujeedadiisu tahay wax teela in la qabto laguna qabto waqti kooban marka waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka oo isaga laantii aanay shaqadan hirgashaan iyo wasaaradaha wada shaqeynta aan leenahay wasiirada maanta halkan noogu yimiday qorsheynta ganacsiga iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud oo runtii iyaguna waajibaadkooda ay ka mid tahay shaqooyin kala duwan ee xukuumaddu wado inay xogaal u noqdaan soona kormeeraan maantana qalabkan lagu soo iibiyay dhaqaalihii dalkeenu lahaa ay indhahooda ku soo arkaan ka hor intaan la rakibin oo dhawaana insha Allah mashruuca xariga aynu ka jari doono madaxweynuhu xariga ka jari doono oo loo furi doono magaalada Hargeysa mar kale biyo qasbadeed oo nadiif ah